Tobanaankii sano ee uu socday dagaalkii qaboobaa dalalka Mareykanka iyo Ruushku waxay baratan xoogan ugu jiraan weli soo saarista iyo samaynta gantaalo tiro badan oo ay ku jiraan kuwa qaaradaha iskaga kala goosha ee loo yaqaano gantaalada bilistiga ah kuwaasoo qaadi kara madaxyada nukliyeerka iyo hubka kiimikada ah ee halista ah. tan iyo xilligaasna boqolaal kun oo ka mid ah gantaaladaas oo mid kasta oo ka mid ahi uu leeyahay astaamo, faa'iidooyin, hawlo iyo awood u gaara ayaa waxaa hubkan ku dhex jira gantaal magaciisa argagax ku riday xulufada NATO iyo weliba xarunta wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka kuwaasoo awood u waayay inay soo saaraan hub la mid ah gantaalkan ama nidaam awood u leh inay kaga hortagaan gantaalkaasi. sanadkii 1961 ayayna ahayd markii midowgii hore ee Sofiyeeti uu baahi xilligaa jirtay awgeed uu bilaabay inuu samaysto gantaal awood u leh inuu gudaha si xoogan ugu galo hawada isla markaana cadowgiisa burburiyo gantaaladooda bilistiga ah ee ka soo horjeeda. si loo dedejiyo dhamaystirka mashruucan si dhab ahna looga shaqeeyo horumarinta nidaamka gantaalaha difaaca ah ee Sofiyeetka ayuu sarkaalkii hore ee injineerka ahaa ee reer Ukraine Mikhail Yangel isaga oo tixraacaya nidaamkii hore ee gantaalaha ee R16 inuu soo saaro gantaalka R36 oo ugu yeedhay magaca Satan oo la macno ah shaydaan. waxayna midowga Sofiyeetku ku guuleysteen inay ridaan gantaalkaas oo ay tijaabiyaan xawaarihiisa iyo weliba awoodiisa bishii Sebteembar 1964 inkastoo natiijadii waqtigaasna ay ka hooseysay heerkii la filayay balse fafaalo fiican ayay u ahayd in la sii wado sidii loo horumarin lahaa gantaalkaasi. gantaalka shaydaan loogu magac daray waxaa adeega ciidamada Sofiyeetka lagu daray sanadii 1988 ilaa sanadka waxaa la soo saaray 5 jiil oo ka mid ah gantaalkan kaasoo ah nooca shanaad oo uu ku safri karo masaafo dhan 15,000 oo kilomitir. jiilka lixaad ee ugu dambeeyay gantaalahanna waxaa la sameeyay 1991 kaas oo soo saaristiisa ka yaabisay shirkadaha hubka ee adduunka oo dhan aadna u cabsi gelisay kuwii tartanka kula jiray. waxaana gantaalkan jiilkiisu sitaa lambar tirsigiisu yahay R36M2 wuxuuna leeyahay awoodo farsamo iyo tiknoolajiyad sare oo halis ah. sidoo kale gantaalkan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah gantaalada nukliyeerka ah ee qaaradaha iskaga kala goosha kuwa ugu awooda badan uguna weyn waxaana marka uu bartilmaameedkiisa ku dhufto lagu gartaa qiiqa hawada sare isku shareeray oo daruuraha ka koreeya. dhanka kalena iyadoo maalmihii dambe ay sii xoogaysanayso inuu dhaco iska horimaad u dhaxeeya Ruushka iyo NATO oo la xiriira xiisadda Ukraine ayaa waxaa si xawliya u sii kordhaysa in Ruushka madaxweynahoodu uu maalinba maalinta ka sii dambaysa uu daaha ka qaadayo ama uu ku soo bandhigayo hub aad u casri ah kaasoo ugu dambeeyay tayeynta iyo casriyeynta gantaalka nukliyeerka ah ee loo yaqaano shaydaan oo awood u leh inuu burburiyo dalalka reer galbeedka oo dhan. waxaana dhowaan la filayaa in gantaalkan cusub ee shaydaan 2 ama Sarmat noociisa RS-28 lagu bedelo gantaalaha RS-36M ee la soo saaray 1970 kaasoo ay NATO u taqaanay gantaalka shaydaanka. gantaalkan cusub ee Sarmat RS-28 ayaa loo qorsheeyay inuu adeega ciidan ee military lagu daro 2011 balse waxaa la filayaa inuu si rasmi ah ugu biiro dhammaadka sanadkan sida laga soo xigtay xarunta Makeyev ee Ruushka ee soo saarta gantaalkan. bilowgii tayeynta iyo casriyeynta gantaalka Sarmat ama shaydaan 2 waxa uu ku yimid kadib markii wasaaradda difaaca ee Ruushku ay sanadkii 2010 qalinka ku duugtay qorshe qandaraas oo dhanka dibadda ah. Sarmat ama gantaalada shaydaan 2 ee ay khubarada militariga ku sifeeyeen inay awoodaan inay qiyaasaha militari iyo dagaalka istiraatiijiyadeed u rogaan dhanka Ruushka haddii ay fooda istaraan xulufada NATO ee ay hogaaminayso dowladda Mareykanku. sida laga soo xigtayna wargeyska Ingiriiska ee Telegraph gantaalka cusub ee shaydaan 2 waxa uu xawaarihiisu gaari karaa ilaa 16,000 oo mayl saacadiiba waxaana lagu xiri karaa ilaa 12 madax oo nukliyeera taasoo la macno ah in gantaalku awood u leeyahay inuu burburiyo bedka uu Ingiriisku ku fadhiyo. haddaba farsamooyinka iyo hababka dheeriga ah ee gantaalka bilistiga ah ee Ruushka ee shaydaan uu ka samaysan yahay ayaa ka dhigaysa mid aad u adag inay nidaamyada kale ee difaaca ee xulufada NATO haysato ay iska qabtaan. gantaalkan ayaa miisaankiisa sida laga soo xigtay
sheegtay warbaahinta ruushka lagu qiyaasaa 100 tan, waxaana uu leeyahay awood uu ku qaadi karo hubka nukliyeerka ah culays qiyaas ahaan gaadhaya ilaa 10 tan. xaddiga culayska ee intaa leeg wuxuu keeni karaa qarax 2000 oo jeer ka xoog badan qaraxyadii atoomiga ahaa ee lagu dhuftay magaalooyinkii Jabaan ee Hiroshima iyo Nagasaki sanadkii 1945. gantaalkan sarmaad ama shaydaan ayaa sidoo kale saraakiisha ruushka ugu yeedhaan King of Missiles, boqorka gantaalada, wuxuuna ku shaqeeyaa shidaal dheeraad ah, waxaana laga ridi karaa bartilmaameedyada dhulka hoostiisa ah ee qarsoon. faa'iidooyinka kale ee gantaalkan uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu miisaankiisu yahay mid aad u miisaan fudud, waxa uuna gaari karaa masaafo ka badan 11,000 oo kilomitir. sida laga soo xigtayna saraakiisha militariga, halista ugu weyn ee gantaalkan cusub ee uu gantaalada kala dheer yahay ayaa ah inuu awood u leeyahay inuu gantaalada kale ka weecan karo marka uu hawada sare marayo, isla markaana u leexan karo jiho aan la filan karin. tanoo 100% ka dhigaysa gantaalkan mid awood u yeesha inuu ka gudbo nidaamyada difaaca ee dalalka kale, siiba ciidamada NATO kuwa ay haystaan. waxaana intaa dheer, sanadkan aynu ku jirno ciidamada ruushka ayaa samayn doona ugu yaraan 10 tijaabo oo lagu tijaabin doono gantaalkan, taasoo labalaabaysa tiradii tijaabo ee sanadkii hore. waxayna sida wararku sheegayaan tallaabadan loo aaneynaya walaaca ruushka ee ku aadan xaaladda cakiran ee Ukraine, taasoo keentay inuu ruushku kor u qaado loolankiisa adag isagoo adeegsanaya hubkiisa, iyadoo ciidanka ruushkuna haatan si toos ah u adeegsadaan nidaamka difaaca hawada ee S-400 ayaa waxaa u sii dheer oo tijaabooyin aan kala go' lahayn ku socda gantaalka difaaca hawada ee S-500 kaasoo heer gabagaba ah maraya. dowladda ruushku waxay sidoo kale horumarinaysaa nidaamka difaaca gantaalaha ee S-550 ee guurguura, inkastoo aysan weli si toos ah u shaacin arrinkaasi, balse waxaa la joogaa ama maalin dhow la shaacin doonaa xilliga gantaalaha shaydaan 2 ay ku biiri lahaayeen adeega ciidan si ay uga mid noqdaan gantaalaha istiraatiijiga ah ee ruushka. isagoo ka hadlaya arrinkan ayuu Jenaraal Karkeef yidhi, sanadkan aynu ku jirno ee 2022 waxaynu qorshaynaynaa in gantaalada sarmaad ay bedeli doonaan nidaamkii hore ee Fofada. gantaalka sarmaad ama shaydaan 2 waxa uu qaadi karaa 10 ilaa 15 madax oo mid kasta culayskiisu gaadhayo 10 tan. gantaalkuna waxa uu ku ridi karaa madaxyadaas meel kasta oo dunida ka mid ah, min waqooyi ilaa cidhifka koonfureed, wuxuuna bartilmaameedkiisa beegsadaa isaga oo ku socda xawaare gaadhaya ilaa 16,000 oo mayl saacadiiba, sida ay saraakiisha ruushku sheegayaan. saraakiisha kale ee ruushka ayaa intaasi ku daray gantaalku wuxuu awood leeyahay inuu ka baxsado oo uu si dhaqso leh uga gamban karo gantaalada kale, taasoo ka dhigaysa inuu gudaha u geli karo nidaam kasta oo dunida yaala. saraakiisha dowladda ruushka ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan horumarinta hubkan ka midka ah hubka hypersoniga, kaasoo ku socda xawaare ka sarreeya nidaam kasta oo difaac. taliyaha qaybta gantaalada istiraatiijiyadeed ee ruushka ayaa isna dhankiisa ku daray mar kasta oo ay reer galbeedku helaan daldaloolo ay uga hortagaan gantaaladayada hypersoniga ah, waxaa markaa muhiima inaan ka arinsano tallaabadan annaga oo soo saarayna hub ka dheereeya ama ka awood badan hubkooda. khubarada adduunka ee falanqeeya siyaasadaha reer galbeedka ayaa tallaabada uu ruushku ku soo bandhigay gantaalkiisa shaydaan iyo kuwo kale oo cusub ee argagax leh u arka mid uu madaxweyne Putin ku muujinayo cududiisa militari, balse taas aan macnaheedu ahayn in ruushku ku duuli doono Ukraine. balse qaar kale ayaa aaminsan in madaxweynaha ruushku aan wakhtigan marnaba ka joogsan doonin inuu ka tallaabo khadkiisa casaa ee horey ururka NATO uu hogaaminayo Mareykanku u dhigeen. warbaahinta ruushka ayaana in muddo ah muujinaysa in Putin uusan marnaba ogolayn arrimaha ka socda NATO ee ay ku jirto inay Ukraine ku biirto isbahaysiga NATO, taasoo haddii ay dhacdo suurtagelin karta dagaalka saddexaad ee adduunka iyo weliba duulaan ruushku ku galo dalka Ukraine. waana tan maanta ugu hadalhaynta badan ee caalamka oo dhan laga hadalhayo, gaar ahaan kadib markii madaxweynaha ruushka Putin iyo dhigiisa Mareykanka Joe Biden ay ku guuldaraysteen inay dejiyaan xiisadihii maalmahan ka aloosanaa qaaradda Yurub iyo weliba guud ahaan